وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميل joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaan yeelo cidii dibandhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah uu fiin inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto anagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha oo khudbad jeediyay kelmadaha ka oranayna. qodobka labaad waxaan ka hadli doonaa ninkii la oran jiray Aidarus al-Zubaydi oo ka soo baxsaday Yemen iyo halka uu maray iyadana kelmadaha ka oran doona. madaxweynaha ayaa wuxuu jeediyay khudbadda waa dhageystay dhamaadkeedii ilaa bilowgeedii. saan ku aqaanay madaxweynuhu wax macna leh oo uu ii sheegay ma garanayo. haba yaraatee wax aan dhihi karo kelmaddaasi macnay lahayd. waxaan ku arkay inuu Israa'iil ku eedeeyay inay tahay dawlad genocidal ah, dad muslimiin xasuuqaysa, isla markaasna rabto Soomaaliya inay isku ballaariso si ay uga duusho wadamo kale iyo si ay ugu soo tarxiisho dad ay ka soo barakicisay dalkoodii iyo deegaankoodii. wax kale oo macno leh kuma arag. maanta kale anigu waxaan filayay khudbada oo ka sugayay agenda iyo mission isdaba socda oo qodob 1 qodob 2 qodob 3 ah oo ah tallaabooyinkaas aan qaadaya si aan uga jawaabo uga falceliyo gardaradii iyo weerarkii ay ugu soo qaaday Israa'iil oo ah cadowga Soomaaliyeed. ma uusan xataa sheegin Israa'iil inay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliyeed sidii uu dhihi jiray Itoobiya waa cadowga koowaad. ma baqdin baa jirta maadaama uu 26 bisha imaan doono Mareykan. waxaan kaloo la yaabay isagoo Mareykan amaanaya oo le Mareykanku waana garab istaagay. Mareykan baa Israa'iil oo uusan raalli ka ahayn lagu samayn lahayd waxay nagu samaysay. mise Mareykanka waad imaanaysaa waxaad ka baqaysaa inuu ku xiro maadaama uu kugu eedeeyay tuug inaad tahay oo aad bakhaaradiisii boobtay. bakhaar buu jabsaday. warqadaad soo saartay oo aad kaga jawaabaysay iyadoo nah ma lahayn oo macna baaritaan baan samaynaynaa. waxaa noo muuqato dadku ay sheegayaan nimanku inay iyagu duubayeen markii meesha la jebinayay. ciidan waardiyaana ay lahaayeen haba yaraateena aan xabad iyo dagaal ka dhicin. kadibna ay duubeen markii ay alaabta la baxeen intii dhexana ay dansadeen kaameradooda. intaa ma sheegi kari weyday oo ma dhihi weyday iyagaa jabsaday, iyagay fartu ku godan tahay, baaritaan baana wadnaa. yacni baqdintaan tirada badan dabcan waxaad ka baqday Maduuro sidii loola dhaqmay. waxaan kelmadaha aan ka arkay ka mid ahaa wadamaana difaacay bari inuu China wadanka imaanayo waan ogahay. ma qarsoodi Turkiguna inuu imaanayo iyadana waan ognahay. ma qarsoodi baa marka qorshahaagu oo waxaad leedahay hawshii ana idinku maqane dalka ana ku maqane halayga warhayo. laba qodob oo aad muhiim ah oo la rabay madaxweynaha khudbadiisa inay ka muuqato kuma arag. qodobka koowaad waxa weeye ajandihiisa arrimaha dibadda oo ku saabsan amni ama magaranaysaa nabad ama colaad miday ahaataba sidii dalka loo difaaci lahaa oo qorshaysan oo qodobaysan ma arag. waxaan kaloo arag arrimaha gudaha khilaafka ka jira oo ka dhex jira intii wada socotay oo haysatay tan goonida u istaagtay inta loo kaadiyo. qorshe uu kaliya madaxweynuhu doorashada 4 bilood kaliya ay ka hartay kama maqlin. maanta kale waxay ahayd inuu miiska saaro wax walba, joojiyo barakicinta uu dadka barakicinayo Muqdisho, boobka uu ku hayo hantida iyo dhulalka qaranka, doorashada uu rabo inuu boobo, sii joogista iyo muddo kororsiga uu rajada ka qabo. waxaasoo dhan inuu miiska saaray haddii ay wadaniyada ku jirto. xasan waa nin conflicted ah. dadka weerarka soo qaaday buu dana ka leeyahay shakhsi ah, isagiyo caa'iladiisuba ay ku milan yihiin. qodobka labaad baan ku sheegi doonaa. waxaa dhacday inaan wax haba yaraatee khudbadaas ummadda Soomaaliyeed faa'iido u ah oo aan ka dhex aragna aysan jirin. kelmadda intaas ka oranaya. qodobka labaad, Zubaydi Aidarus al-Zubaydi ayaa ka soo baxsaday Yemen kadib markii imaaraadka gabi ahaanba laga saaray dalka Yemen oo ay dib aad u badan u geysteen. dhowr milyan oo qof ay dileen,
dhowr milyan oo qof ay gaajo iyo faqri iyo dawo la'aan iyo cunto la'aan iyo baahi ugu dhinteen iyo macaluul in badan oo ka mid ah ay qaxooti noqotay oo caalamka u kala yaacday dhibka dalka loo geystay oo ay rabtay imaaraadku hadda inay u kala goyso 3 qaybood u kala goyso ama ugu yaraan labadii qaybood oo ay mar ahaan jirtay waagii Ruushka iyo ay isku qabsadeen NATO iyo Warsaw isku qabsadeen oo labada dhinac loo kala gooyay in lagu celiyo ugu yaraan ama kaba si yar laga dhigo oo ku talagalay markii gabi ahaanba laga saaray ninkaani wuxuu kamid ahaa adoonta u shaqeysa wani Yamaniya wuxuu ka cararayaa dalkiisii wuxuu u cararayaa oo amni iyo nabad weydiisanaya ama ka helaya isku halaynaya ninka uu adoonka u yahay waa bin Zaid isna adoon u siyaa Israa'iil ninkaas wuxuu ka soo baxsaday Berbera buu ka soo degay markuu ka soo baxsaday Cadan doon buu ku soo baxsaday wuxuu dansaday ama ay doontu dansatay GPS-ka si aan loo raacin meesha ay jirto loo ogaan Berberu ka degay waxa halka ku sugaysay diyaarad nooceedu yahay Ilyushan -76 oo aircraft ah oo sugaysay oo imaaraadku leeyahay diyaaraddaasi halkaas ka qaaday maadaama iyagu ay base-ka iska leeyihiin dekadoodan maamushaan waxa degayay waxa baxay cidina ma ogaan kartaan iyaga ahayn diyaaradooda sugaysay ciidamadooda u tagay waa la qaaday xamar baa laga dejiyay xamar marka aan taariikh yar idinka siiyo dowladii ka horeysay waxay gabi ahaanba dalka ka saartay imaaraad cayrintaasi ma ahayn cayrin shakhsiya ama dagaal shakhsiya oo dhex maray madaxweynihii Soomaaliya iyo imaaraadka madaxdoodii waxay ahayd xadgudub loo dul qaadan waayay oo ay isdaba jooga oo ay ka geysanayeen dalka ayaa waxaa la arkay inay daruuri tahay dadkan in dalka laga eriyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninkii iimaanka la'aayo baastada yar siistay xiriirka oo lacagtii xogaaga ahayd oo lagu qabtay nimankaas oo meel taalay 4 sanadood rajo ka qabay inuu cuno ayaa ku heshiiyay nimankii la soo celiyo hala soo celiye xagee maxaa loo sameeyay waxaan kaloo idin xasuusinayaa waxaa jiri jiray airportka qayb u gaar ah reer xalane inay ka degaan dowladii Xasan oo hore iyo wixii ka horeeyay dowladii Farmaajo way xirtay waxaa lagu khasbay inay maraan dadkoo dhammi immigrationka iyo wadadaas rasmiga ah VIP-da ay ka soo galaan cidii madaxa oo la ilaalinayo amnigooda iyo nabadooda dadkoo dhammina ay meel wada maraan diyaarad kastoo soo degta iyo diyaarad kastoo kacaysana ay hubinta iyo ilaalinta airportka ee ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya ay marto waa sida caalamka oo dhan u shaqeeyo waa sida dowladnimo ay tahay waxay ka mid ahayd xoreyntii laga xoreynayay Soomaaliya ajaanibta gacantooda iyo beesha dhexaad iska maamulanaysa waxaa gardarro ahayd in la sameeyaba Xasan wuxuu ogolaa inay jirto wuxuu ogolaa madaxtooyada in ajnabi u deganaado markii uu dowladnimada ku soo noqday dalkii dowladii ka horeysay ay ka cayrisay wadanka buu soo celiyay ha soo celiyay inta kaga maharine iyagana meel gaar u sameeyay kuwii xalanana meel gaar ay leeyihiin imaaraadkuna meel gaar u leeyahay muxuu ku bedeshay labada qoys oo xaasas madaxweynaha laba guri bay ka siiyeen dalkooda biilkay ka bixiyaan iyo cuntada baabuur dhowrana waa siiyeen ay wataan wax gaar u ah oo shakhsiyan lacag oo la siiyeyna waa la sheegaya oo aad u tiro badan mawjada madaxweynuhu marka dalka iyo dowladnimadii uu gacanta ku hayay wuxuu ku iibsaday personal iyo family interest waxaad xasuusataan hadda ka hor inay soo duushay oo aan ka dagaalanay oo ka qaylnay hawadii Soomaaliya oo laga keenay Kenya in madaxweynaha qoyskiisu ay ka shaqeynayeen caruurtiisa iyo familigiisu in hawadii dib loogu celiyo dalka imaaraadka oo iyagu ay markaa la yeeshaan oo kambaniya loo sameeyo maamulo lacagta Soomaaliya ay hawada ka qaadato diyaaradaha hawada maraya oo kore iyo diyaaradaha ka degaya ama ka kacaya dalka Soomaaliya gudihiisa lacagaha laga qaado oo ka soo gala dakhliga ah in ay family ahaan u maamushaan maxaa ka dhashay marka conflict of interestgaas ama iimaan la'aanta shakhsiga ah oo dowladnimadii la dhex geliyay maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay inaan la ogaan karin diyaaradda imaaraadku leeyahay ama ay xalana leedahay beesha lixaad waxa saaran iyo waxay sido iyo waxay qaadayso iyo waxay dejinayso midna aan la ogaan karin waa dalal kale ay maamulanayaan waxaa lagu eedeeyaa xalane
in organada qaaliga ah dadka lagala baxo in khayraadkeena lala baxo uranium in lagala baxo Soomaaliya oo ah macdanta ugu qaalisan caalamka oo laga sameeyo atomic bombka in lagala baxo khayraadkeena iyadoon cidina ka warhayn baaritaana aan lagu hayn sababtii loo xiray dawladdii hore u xirtayna in arrintaa la xakameeyay ahay dawladdaanu marka dawladnimo ma ahayn ujeedadeedu ganacsi bay ahayd markaad ganacsado tahayna conflicted markaad tahay haddii af wax cunay xisho wax kastaa lagaa samaysanaya wixii dawladdii ka horreysay ay baabi'isay oo dhan buu dib u soo celiyey markaasuu faraha kaga gubtay hadda maxay ahayd maadaama Israa'iil ayna soo weerartay uuna og yahay madaxweynuhu in imaaraadku yahay qolada keentay oo u shaqaynaysay horgalkana u ahay addoonkaas bin zaayid ah inuu isaguna addoon u noqdo buu ka doortay inuu dalka difaaco waxay ahayd in hawadeena gebi ahaanba la xiro waa sheegaynaa laakiin madaxweynuhu danka ma leh maxaa yeele waa conflicted ma samayn karo because lacag buu ku qaatay inay saa ahaato inay iska furnaato ciddii rabtaa ka degto ciddii rabtaa ka baxda aan la ogaan ceeb iyo fadeexad waxaa Soomaaliya ugu filan maanta nin baxsad ah oo mujrim ah oo dalkiisii iyo dadkiisii intuu burburiyay ka cararaya oo u baxsanaya addoonka bin zaid la yiraahdo addoonka u ah Netanyahu u baxsanaya ogaada bin zaid xasuuqii ka dhacay Falastiin qaybta ugu badan buu qaatay Abu Shabaab isagu u shaqeynay isaga diyaaradihiisa wax ka duqeynaya intaas oo lacag iyo intaas oo dhaqaalaha buu ku bixinay in Israa'iil sida u baabi'iso dadka reer Gaza ninka isaga ah oo addoonka u ah ninka ayuu kanuna addoon u yahay sida kuweenuna addoon ugu yihiin Xasan Sheikh Deni Cirro Madoobe kuwa kale oo aan sheegayn oo doorashada marka la gaaro aan magacyadooda faafin doono u shaqeeya oo iyagu ay wataan oo balaan B u ah hadii balaan A oo ah Deni uu shaqeyn waayo balaan B-ga kuwa oo aan ka shaqeyn doono sheegi doono kulligood waxay addoon u yihiin u shaqeeyaan addoon markaan leeyahay literally I mean addoon waxa la yiraahdaa qof aan qofka masterka ah hadal ku celin karin kelmad kuma celin karaan ninkaasi xataa ma dhihi karo diyaaradda hala baaro diyaaradda halkaa ka degtay ciday siday iyo waxa dhex maray midna ma taqaan dawladda Soomaaliya kamana war hayso farta waa lagu fiiqay madax airportka haysata sida dhuxulow laakiin sida saxda ah oo dhabta ah diyaaraddaasi waxay ka degaysaa meel u gaara waxa baaraya ama arkaya ama la kulmaya waa imaaraad waxay qaado iyo waxay sido iyo waxa ogaanaya waa imaaraad cid war u haysa oo dawladdii Soomaaliyeed haba yaraatay ma jirto waa dal dhex degan dal kale waa qayb yar oo ka madax bannaan Soomaaliya waa waxyaabihii chapter 7 markiina la geliyay naloo ka faa'iideystay oo dawladdan ka horreysay ay soo wada afjartay hawada ka mid ahayd cunaqabataynta hubka ka mid ahayd iska maamulashada airportka ka mid ahayd wadankii nagu soo xadgudbo xiriirka loo jaro oo mutual respect iyo mutual interest lagu wada dhaqmo la soo celiyo sharafta Soomaaliyeed ba ka mid ahayd waxa soo dhan dib u cunay wuxuuna siistay xoogaa lacag oo macno lahayn u siistay manikaas marka dalka difaacaya dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hal isku tashado cid kasta oo talada gacanta wax kaga haysa hal isku tashado ninkaanu nin dal difaaci kara maba ahaba asal ahaanna uma samaysnayn aqoonteediina ma lahayn geesinimadeedana ma hayo maxaa yeelay waa nin laga hayo faramad madow aad u tiro badan hadday tahay corruption iyo hadday tahay wax kasii badanba gacanta lagaga hayo waxuusan wajihi karin sidaa darteed in dalka kaa lagu haleeyo waxay ila muuqataa nasiib darro ku dhacday dalkaas ilaahay oo u bixiya oo badbaadiye mooye ma garanayo ninkaas oo 2 maalmood oo kale sii jooga dalkaasi maalin kasta oo maanta ka dambaysa wuu ka sii xumaanaya wuuna ka sii rajo xumaanaya sida xaqiiqada ah oo kharaar oo runta kharaara oo inaan sheegna ay muhiim ka tahay sidaa weeye markuu imaanayana iyaga keensaday lacagtii ku baxday lacag caadi ma ahayn codkiiba 200 oo kun la kala siisanaya teendada gudaheeda wixii loo keensaday buuna hayaa shaqadii loo keensaday ayuu gacanta ku hayaa xaqiiqadu waa saa ma ku faraxsanahay hadalka inaan iraahdo oo madaxweynahayga aan ka iraahdo may kuma faraxsani laakiin waa runta kharaar way dhibaysaa xaq weeysa sidaa weeye ninkaasi dal ma difaaci karee ciddii difaac dalka